yaalihii wiiga gandama dhacay ee qaladka ahaa ee dambiga ahaa ee ilaahay aynu kaga durkaynay waxa kow ka ahaa dadkii maatida ahaa ee walaaladeen ahaa ee nala diirka ahaa ee nala afka ahaa ee Soomaalida ahaa ee la raray ee dad fara badan ilaahayeen wadada jaaniba malaha dalkan umay dhalan waayo waa kelmadaasi kelmad khatar weeye waayo qofka muuminkii dhul wuxuu ku helaa mid ogow waa tawxiidka la ilaaha illa allah haduu yiraahdo magac loo eegi maayo oo midab loo eegi maayo oo luqad loo eegi maayo oo ardaa iyo deegaan iyo dal qofka looma eego waxa daliilu ah nabigeena kaleey salaatu wassalaam bilaal buu soo dhaweeyay oo adoon ahaa oo la yaso oo la durkiyo كفار قريش رجي النبي قول دواء إلا أرضاك أهانا نبي عليه الصلاة والسلام وحول تبت يد أبي لهب وتب أبو لهب يقويس كيجي إسجا هلاك سمي ويا الله كعبسي الدين تديني قرآن كوكا قالوا دعوة دي والضفرية توحيد كي وقفك وحل لقو قيمة يا الله كعبسي قفك وحل لقو قيمة يا ولا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى وحلي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنين يجا سكية سؤال يجا إسحجا يجا ولا لا إن ترى كان وديجان كله يا أرضا كله وسوقليتي وقف أجانب وننجرني بارك الله فيكم كلمة جفوي هذه الدولة دكوك كعدينا شعبك ده wax kasta yaanu liqin oo wax kasta yaanu qaadanin qodobka kale labaad wuxuu noqonayaa al muslimu akhul muslim muslimka kale waa la walaalkii midab iyo magac iyo mansab intaba wuxuu laandheero qofku ku noqonayaa inna akramakum indallahi atqaakum waninka ilaahay u dhawaada ninka ilaahay u dhawaade ku xidhan kaasa laandheera ah qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa muhaajiriin iyo ansaar ayay soo dhaweeyay oo Madiina qabsaday oo saxaabadii soo hijrooday ee Makka ka yimi soo dhaweeyay heer waxay gaadheen ay raahdaan ninkii uu hijrooday ee uu yimi ee Makka ka soo qaxay gabadhaydan ku furayaaye ta allaaliya ta doonto dhowr dumaraan qabaaye fartay ugu fiqana ku furaye ta islaamnimadu islaamku wuxuu ina farayaa sadqaybsi dadka walaalada ah ee la fogeeyay waxa aad u liita qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa waxa lagu oranayaa sacuudigiiba farashay dawladaha caalamka miyana darkay dalkii dalka wuxuu yeeshay wax la yiraahdo fiisa iyo dalku gal iyo baasaboor iyo rubba udrin aqbahu min ad-dam haday iyagu qaldameen oo ay diintii ka wacdeen miyaa lagu dayanayaa miyaa la dabagalayaa qofku la ilaaha illa allah haduu iraahdo baasaboorku leeyahay qofku waa kelmad weeye taa ogow la ilaaha illa allah waa walaalka